Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaagsan. Casharkeena maanta wuxuu daba socdaa casharka shalay soo qaadanay ee pronoun magacayaal. Halkan waxaa noogu qoran qeexid pronoun ama magacayaal qeexida leedahay luqadda Ingiriiska ku qoran tahay. Isla socod wanaagsan. Pronoun magacayaalka takes the place of the name. Waxa uu qaataa booskii ama meesha magaca. Takes waxa uu qaataa the place booska ama meesha of the name ee magaca of a person qof magacii, place goob magaceed ama meel magaceed, thing shay magacii. Pronoun wuxuu qaataa booska qof magacii ama goob magaceed ama shay magacii. Read the following story and use the pronoun in the box to complete each sentences. Aqri sheekada soo socota oo isticmaal magacyaalada ku jira sanduuqa si aad u dhamaystirto jumladaha soo socda. Read oo aqri the following story sheekada soo socota and use isticmaal pronouns magacyaalada in the box kuwaasoo ku jira sanduuqa ama boxka to complete si aad u dhamaystirto ama ku dhamaystir each sentences mid kasto each waa mid kasto sentence waa jumlado si aad ugu dhamaystirto jumladaha mid walba ka mid ah. Qaanada waxaa kugu jira he, she, they, it. He, she, they, it. He waa isaga, she waa iyada, they waa iyaga, it waa wax walba loo isticmaalo non-living things ama waxyaalaha aan aqliga lahayn. He waa isaga, she waa iyada, they waa iyaga, itna waa wax loo isticmaalo xayawaanada iyo wax walba aan aqli lahayn. Sheekada waxay ka bilaabanaysaa Mary gabadha la yiraahdo. Mary was walking in the woods. Mary waxay socotay duurka ama keynta dhexdeeda. Mary was walking in the woods. Gabadha Mary la yiraahdo waxay dhex socotay duurka ama keynta dhexdeeda. Woods waa duurka ama keynta. Waxaa kaloo jira ereyo kale loo isticmaalo woodska ama keymaha. Waxaa jiro forest wax loo yaqaano wuxuu ka yara weyn yahay woodska. Okay, waxaa kaloo jiro jungle waxa la yiraahdo asna wuxuu ka sii weyn yahay forestiga sheegnay. Woods waa keymaha yaryarka, forest waa woodska wuxuu ka yara weyn yahay, jungle-na waa meelaha geedaha badan oo keynta weyn ah. Mary was walking in the woods at last meel banaan come to house. Mary waxay socotay duurka ama keynta ugu dambeyntii meel banaan come to house. Maadaama aan ka hadlayna gabar Mary ay gabar tahay pronounka la isticmaalaya meeshaas banaan Mary was walking in the woods. Mary waxay socotay duurka ama keynta dhexdeeda. Pronounka isticmaalayna wuxuu noqonayaa iyada maadaama ay tahay gabar waxaan isticmaalaynaa iyada. Mary was walking in the woods at last she came to house. Ugu dambeyntii waxay timi guri. Ayada waxay timi guri. The house was empty. Gurigay timi wuxuu ahaa mid maran. Gurigay timi wuxuu ahaa mid maran ama mid cidna aysan joogin oo cidle ah. Gurigay timi wuxuu ahaa mid maran aysan cidla joogin. Meel banaan opened the door. Waxay furtay albaab. Opened the door. Waxay furtay albaabka. Maadaama albaabka qofka furay ay tahay gabar waxaa isticmaalaynaa she opened the door. Ayada waxay furtay albaabka. She opened the door. Ayada waxay furtay albaabka. And so waxay aragtay 3 chairs 3 kursi
by the kitchen kuwaasoo yaalay jikada agteeda ama kushiinka agtiisa. And so waxay aragtay 3 chairs 3 kursi by the kitchen kuwaasoo yaalay jikada ama kushiinka hortiisa. maadaama wax jamac ay yihiin 3 chairs 3 kursi waa jamac, waxaa isticmaalaynaa they iyaga. And so 3 chairs by the kitchen, they all different sizes. They all different sizes. Okay, waxay ahaayeen different sizes, kuwa kala duwan cabirkooda ay kala weynaayeen. She sat down on the smallest one. She sat down ayada waxay ku fadhiisatay on the smallest one, kii ugu yaraa. On the smallest one. She sat down on the smallest one. Waxay ku fadhiisatay kii ugu yaraa. She sat down on the smallest one. Ayada waxay ku fadhiisatay kii ugu yaraa. maadaama waxa lagu fadhiistay uu yahay kursi, kursina wuxuu yahay wax aan noolayn, waxaa isticmaalaynaa it. She sat down ayada waxay ku fadhiisatay on the smallest one, kii ugu yaraa. It was perfect size. It was the perfect size. She sat down on the smallest one. It was the perfect size. It was the perfect size. Wuxuu ahaa mid ayada ku wacan kursiga size-keeda ama mid la eg ayada. Soon she fell asleep. Si dhaqsi ah ayay hurdo la dhacday ama si degdeg ah ayay hurdo ula dhacday. When she woke up, markay soo toostay ama markay soo kacday, 3 lions 3 libaax were standing over her. Ayaa dusheeda taagnaa. Markay soo kacday ama ay soo toostay, waxaa korkeeda taagnaa 3 libaax. The biggest lion, libaaxii ugu weynaa, spoke to her. Ayaa la hadlay iyada. The biggest lion spoke to her. Libaaxii weynaa ayaa la hadlay iyada. maadaama uu yahay wax hadlaya libaax uusan lahayn wax caqli ah, xayawaan uu yahay, waxaa isticmaalaynaa it. The biggest lion spoke to her. It asked Mary. It asked Mary. Libaaxii ayaa wuxuu weydiiyey gabadha Mary la yiraahdo, would you like stay for dinner? Ma jeclaan lahayd inaad joogtid caawa cashada? Ma jeclaan lahayd inaad joogtid caawa cashada aad nala cashaysid? ayadoo naxsan baa waxay tiri I would love to. I would love to. Ha, waan jeclaa rabi. Said Mary. Hadalkaas waxaa yiri Mary. Sheekadeen waxay noogu dhamaatay meeshaas. fadlan janaalka tuusa subscribe kuween subscribe saara gambeelka furo saa ula socodka casharada ay soo gelina maalin kasta. hadduu subscribe ku yahay like grade videogan noo share garee saa u helna saaxiibo wanaagsan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.